السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح وناكسن أما برقة وناكسن كل هذا حقنا وكوي طبعا كي تدوب دقيقة مريسا مركز صباح وناكسن وعلى صوت أنا بتوسان جعلها أصحاب دمانتين مركز ورئيس وإذن سلامه مركز حكتا قيبتي لبعض أيام وقلايا وضيدان است isagoo taxana ahaan doono barnaamijkan oo kolba aan qeyb kusoo qaadan doono waxaan u gelayaa qeybtii labaad ee oday danayste saaxiibkii ayuu u mahad celinayaa marka wuxuu leeyahay ni ahow fariid baa tahay wallaahi fariid baa tahayo oo taladaa isiisay tala lamida weligay maana arag waxaan doonayaa bal inaan hadbad yaroon meelaha isku dardarsaday oo saaxiibaday aan isla galnay dhowr 4,000 baa iyo meelahaas way gaaraysaa markaan qaato inaan wadankii qabto oo ama wadankii aan tago mid yar meelaha aan ka raaraadsado kulley aroosyada iyo waxyaabaha lagu dhigay iyo doonitaanka kulley way ii deeqaysaa aan filayaa 4,000 tikidhkana horuuba iigu jaraa marka dee wadankii aan qaban doonaa hebelow balaalihii yarkaa isiiya 4,000 iisoo hormariyo waxaan doonayaa bal inaan wadankii qabte odayna waan ahay oo qaboobihiin uu soo socdaa qaboobaha halkan laguma noolaan karo gariir iyo aan loo adkeysan karin xaajiyadna ma jirta inaan halkaa qabta waqti horaa bacda la iisoo tuuro xaajiyadna halkan kuma haya anaa ku kibrey bal midaan iska adoonsadaan afrika ka doonte bal mayaho wax isugu kay soo daro intii yarta ahaana iyo hormariyo si aan bal 3 bilood uga soo gabado oon meesha ana ka madaxweyneeyo aan siraahdo bal oday qurbaawi ha la yiraahdo mid yarna ha lagu qabtee bal iisoo hormaraya oday danaysta marka uu dhaqaajinayaa 4,000 oo la siiyey halihii saaxiibtinimo la isugu daray iyo aqalkii uu dib u kireystay iyo inamadii muxuu ahaa meesha sii deganaa halihii yaraayo u garteen iyo oo bil walba ay siinayeen iyo kaarkiisii bangigana wuxuu uga sii taganayaa saaxiibkii ilaa awr beeshan uu iska ahaa halihii ceyrtu halkaa ku qaadanaya suu u socda muqdisho ka degayaa muqdisho markuu tago reer qaraabo ay yihiin uu u tegayaa warniman yahow meeshaan meel bus aan ka imid qaboobo meeranahoo noloshan ay ku adag tahay haddii aan gabar lagu hayn karin oo dumarka ay gaaloobayaane bal mid reeraha miyigaa iyo hala iga soo fiiriya ha lagu qabto war maxaa miyi ka doonaysaa hablaha halkan jooga iyagaan waxba islehayna mid walba ilaa noloshaada ku siiya isleedahay reerkii reer hebel ahaa u tago 1,200 hoosta u geliyo inantana ka kaxayso guriga unbaad u dhigaysaa meeshan dhib badan ma jiro haddaad gabadha muxuu ahaa salooto yar ama kuraas yar aad usoo dhigto sariirna u dhigto isugeen waxay noqonayaan $1 noloshana way dhammaatay qadada maalintaana waad bixin oo 500-600 aad ku jajoobin wixii oo dhan waxay isugu kaa noqonayaan 3,000 noloshaadana waad gelaysaa eniyo sidaa yeel dhibba malo waxna ma garanayaanoo waxay kugu xirayaan iska yar arooska marka la dhiganayana saaloon yar unbaa la tegayo wixii loo xirxiri lahaa meesha inta lacag yar la baxsho looga soo qaadi waa loo gelgelin maalintaas waa lagu dhaldhalaalin galabtiina kareeba ahaayena waa la celin qoftana layn qabow guriga kuu joogaysaa meeshaadaad muxuu ahaa nimcadaada iska fooqaysaa walla niyo walla runbaad sheegaysaa saaxiibkeeyo ficnida 3,000 oo doolaraan wax walba ku helaya gabar yaroo qurux badan oo 18 yeersana iyagu imaanaysaa walla nimcaabad sheegaysaa iska fooq waxayga sidii buu odaygiis intuu buxuu oday qaraabo yihiin oo asagaba ay ka cadeedo isla laa nolosho kaba musbaar lagu riixay butay oo yaabana ayuu tagayaa kunkii hoosta ka gelinaya halihii yarkaa hoosta ka gelinaya gacal soo dhow gacalkeyo alla maxaad soo dhow aad ku jeceliya muran maleh gabarteyda anaaba kugu darsanaya ii soo dhow ilaan reerkii noloshii laayeen soomaa halkii odayga lagu qaabilayaa gabartii yarteed lagu darayaa 3,000 laga qaadanayaa jaagu u seexanaya midan yarta ana iyadna waxay isleedahay xaaji lacag baa kuu yimid oo yurubna dhaqsad ku tegaysa ama maraykanka oo noloshaadii waad heshay lacagta yarta ka guro sidii uu odayga aroos ku galayaa meeshii kula qabsanayaa lacagtiisii yarta ahayd oo ceyrtana inamadii uga tegay u dirdirayaan meeshii marka maalinba life ka soo galgalayaa uu leeyahay nolol baan ku jiraa iyo adduunya ay dhisantay iyo miyaada ogeyn inaan saan kasoo taga meesha nolol ma jirta
halkan kalluunka cusub iyo arigii baan raqayaa, gabar yarna waan haystaa, maxaaba iga maqan, caanaha geelana waa isku daldalaya, inan yar baa noqday fariida. war meeshaa ku baabiinaha basbasine kasoo taga. qaybta saddexaad la socda insha allahu tacaala, iyo tan iyadoo kasii xiisa badan intan.